qisadani waxay ku dhacday wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Jaamac oo ku nool xabsi ku yaalo dalka Mareykanka. Haddaba si aad qisadani uga bogato dhameyso muuqaalka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموسى مرة بإيميل وجوتي مسود وهذا صاحبنا أنا ودك صاحبني ما أنت مقالكين وح أكسب سني هاي قصة آدي آد مرغب بدن هذا بس آد قصة داني ولا ما يسطو إن لجار مقال كلمات كيسة كدمنا وحيرة أي جاجا أو قصة داني كسب سن خاص إنه بقول سوداك إن شاء الله هذا بنت أنا قصة وجود قلين سيدا دو جدام بو جنالك وحنكسو كرديني بدن كير جوين كأما إن جنالك كتاجيري كرتو بدن كاستابو كدمنا كتاجير جنالك وحكتاجيري كرتيد وحي بروسس أمري سيدنا مركز جوين كأتابتيد أي خوصو بحدونان أوكي أنا جود قلنا قصة دينا مانتا قصة دينا وحا يكون عدي ويل سوماليات أو لغو مقعابا جامع وحا لدا شيء قبر كير لبدودن وحا يكون ودا دشين دالك إماراتك جامع مركي ودا شيء إساقو أو وحير جيرو ما داديسا أيسان وينادين وحا واي أبيسا sababta uu ku waayay ma uusan ogeyn ama aabiis meesha uu ka baxay ama meel uu aaday uu garan waayay jaamac markii aabiis uu waayay isaga oo yar isaga iyo gabadha ka yar waxa soo korsatay hooyadooda wax walba ay u baahdaan wax walba nolosha ugu baahdaan hadii waxbarasho noqon lahayd iyo hadii noqon lahayd baahiyooda kaleeto oo caruur u baahan karaan way ka caawiso hooyadood way u dhabar adeegtay wax walbana waxa waayay oo duruuf ah way ka soo saartay haddaba sidaasi sida ay ugu socotay jaamac waxa waayay iyo walaashiisa ka yareed way weynaadeen iskuul ay galeen iskuulkii waxa waayay way ka qalin jibiyeen jaamac markii uu 20 sano jiray waxa la soo xiriiray aabihiisa 20kaas sano ay kala maqnaayeen meel uu jiraan ma uusan ogeynin waxa ay ku xisaabiyeen in aabahooda uu dhintay ama uu geeriyooday marka jaamac markii aabihiisa uu la soo xiriiray waxa uu aabihiisa u sheegay inuu ku nool yahay dalka Mareykanka oo 20kaas sanana Mareykanka shaqaysanayay hadirtaana uu u baahan yahay inuu wax walba ay u baahan yihiin asaga iyo gabadha la tago oo ka caawiyo oo garab uu ka siiyo Mareykankana uu qaadayo labadoodana xaq ay waxbarasho iyo heer nolol fiican ay ka heli doonaan jaamac waxa waayay aad ugu farxay maadaama uu aabihiis oo 20 sano uu weysanaa uu helay arintaasna waxay u noqotay jaamac iyo walaashiis arin farxad leh oo ay noloshooda wax badan uga bedeli karaan haddaba jaamac markii aabihiis uu la soo xiriiray familkooda way wada farxeen jaamac iyo walaashiis ka yar waxa loo qaaday dalka Mareykanka waxaana qaatay aabahooda hooyadoodna sabab jiro awgeed ama sababo ee ku hartay ayaa jiro sida darteed waxa baxay jaamac iyo gabadha dhalatay iyo aabahooda waxayna u guureen dalka Mareykanka haddaba jaamac markii dalka Mareykanka ay u guureen asaga iyo aabihiis iyo walaashiis waxa ay degeen magaalada New York ee dalka Mareykanka New York markii ay degeen meeshaas nolol fiican ama nolol cusub uga bilaabatay jaamac waxa uu ku haminayay in uu heli doono ama wax weyn ka xaqiijin doono ama guulo uu ka xaqiijin doono nolosha walaashiisna sidoo kaleeto waxa uu la jeclaa inay guul xaqiijiso noloshana heer sare ay ka gaarto ay family ama wax dad wax bartay ay noqdaan waalidkoodna ay garab qabtaan siiba hooyadood oo intaas oo sano u soo dhabar adeegaysay haddaba markii New York ay ku noolaayeen muddo 2 sano ah bartaas ay wada deganaayeen si kadis ah waxa ay jaamac iyo walaashiis ku waayeen aabahoodii ay markii hore 20 sano kala maqnaayeen haddaba jaamac waxa u bilaabmatay nolol kale maadaama uu waayay aabihiisa magaalada uu ku nool yahay waa magaalada ugu qaalisan dalka Mareykanka jaamac iyo walaashiis wax ay sameeyaan way garawaayeen aabahoodna waxa waay meel ay kala xiriiraan way waayeen contact walba iyo number walba email walba ay kala xiriiri kareen waxa waayay uu ka goostay ama uu ka xirtay sida darteed waxay go'aansadeen inay Soomaalida dhex galaan sida darteed waxay aadeen Minnesota waxayna halkaas ka heleen guri ay ku noolaan karaan haddaba jaamac iyo walaashiis ma haastaan wax garab istaaga ama garabkooda istaago oo ka caawiyo noloshooda ay waxay u baahan yihiin marka laga reebo inay ayaga iskooda u shaqeystaan ee noloshooda meel ka soo saartaan sida darteed jaamac waxa waayay wuxuu ahaa markiisa hore wiil karti leh oo wax qabsanayo oo hadii hooyadiis oo la joogay hadii aabiis oo la joogabo ay ka go'an tahay inuu noloshiisa meel ka soo saaro sida darteed jaamac wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo ama shaqooyin wax uu raadiyo asiga iyo gabadha la tabo noloshooda oo meel ka soo saaro sida darteed jaamac howlihiisa iska bilaabay walaashiisna way iska baashaaleysay way iska raaxaysanaysay jaamac markii in muddo ah isaga iyo walaashiis ay wada noolaayeen walaashiis waxa ay bilaawday inay saaxiibo ka samaysato bartaas magaaladaas gaar ahaan saaxiibo cadaan ah oo Mareykan ah inay samaysato sida darteedna ay sii dhax gasho Soomaalida ka go'do gaar ahaan walaalkeedii adduunka ay walaalaha ka ahaayeen oo waalidkoodna aysan la joogin ee ka go'do sida darteed jaamac waxa uu bilaabmatay nolol kaleeto oo ah
walaal la'aan iyo waalid la'aan walaashiisna wax walba oo sheego way ka qaadan waysay wax walba oo tala iyo tusaale oo sii way ka qaadan waysay anaa ku garab taagan noloshan hadirtaan gashay ka bax oo dhahay way ka diiday sida darteed waxa waaye jaamac ay walaashiisna meesha ku kala hareen kaligiis ayuu guriga soo haray walaashiisna waxa waaye waxay raacday saaxiibadii cadaanka ama Mareykanka ay sameysatay sida darteed jaamac markii uu gurigaas kaligiis ku noolaa in badan asagana waxa uu sameystay asxaab kale to maalmaha kamid ah jaamac waxa kaar bangiya u keenay wiilal ay asxaab ahaayeen oo ay diris ahaayeen wiilashaasi waxa ay jaamac u dhiibeen kaar bangi ay soo xadeen isagana mausan ogeyn ama mausan filayn ama isma dhahaynin asxaabtaadan ayaa kugu sameyn doonto wax aad noloshaada ka shalayn doontid ama waxa ugu xun ee aad noloshaan kula kulantaa balse jaamac sidaas ayaa kaarka loogu dhiibay kaarkii asaga oo haystan waa laga qaatay kaarkii isagoo lacagta ka baxsi isdhahayo ayaa la qabtay jaamac oo loo sheegay in kaarkaani la soo xaday dadka soo xadana in muddo la raadinayay adigana aad tahay qofka soo xaday jaamac waa la xiray in muddo markuu xirnayna maxkamadda ayaa la soo istaajiyay waxaana lagu xukumay xabsi damiinkaaga ha ku furto ama xabsi ilaa laga damiinto ama ilaa ganaax lacag laga bixiyo aan laga soo deynin ayaa lagu xiray mana haasto qof lacagahaas ka bixiya ama xabsigaas ka soo damiinto jaamac waxa u bilaabmatay nolol kale oo cusub oo ah nolosha xabsiga hooyadiis waxa uga soo tagay dalka Imaaraadka aabiisna waxa ay ku kala tageen magaalada New York walaashiisna waxa uu ku waayay Minneapolis jaamac intii uu magaalada New York ku noolaa hooyadiis waxa uu booqan jiray sanadkiiba hal mar waxaan ugu dambeysay sanadkii oo booqday ee ahayd 2008 sida darteed jaamac waxa 9 sano kadib loo soo sheegay in hooyadiis ay ku geeriyootay dalka Imaaraadka sida darteed waxa uu sii bilaamatay murugo kale hooyadiis oosan 9 sano arkin in ay geeriyooto aabihiisna oosan war ka haynin walaashiisna haba sheeginba ay noqoto sida darteed jaamac maanta waxa uu ku jiraa xabsi ku yaalo dalka Mareykanka waxaana halkaasi ka soo deesan karo damiin ama qof inuu ka damiin noqdo aabihiisna waxa waaye sida uu sheegay waa qof lacag leh oo ka soo deyn karo balse waxa uu ku dhahay adiga ayaa meeshaas is dhigtay oo tuuganimadaada ayaa halkaas ku dhuftay oo aniga inaa Mareykanka waxa ku keenay aad shaqaysatid oo aad horumar gaartid ee kuma keenin inaad tuuganimo aad bilowday hadii aad xabsigaas ka soo deeyana tuuganimadaas mid ka weyn ayaad biri ka maalin geysan kartaa oo aad xabsigaas ugu laaban kartaa jaamac waxa isku dayay inuu aabiis u sharaxo arinta jirto balse aabiis uu ka yeeli waayay arintaas oo ama uu aamini waayay waxa uuna ku eedeeyay in asaga uu tuug yahay oo waxaasi lagu xiray ama xabsiga uu ku muteystay oo isaga gacantiisa ku kasbaday haddaba jaamac maanta wuxuu ku jiraa xabsigaasi maanta waxa ugu weyn uu ku aaminayo waa inuu xabsigaas ka soo baxaa oo xorriyadiisa dib u helaa haddaba qisadani run ahaantii waa qiso aad iyo aad u murugo badan waxaan u rajaynaynaa jaamac in xabsigaasi uu ilaahay ka soo deeyo insha Allah waxa anaga u awoodnana waa duco waxaan jaamac caawin karo aabiis iyo dadka kale ee ku nool dalka Mareykanka hadii aad inta inala soo gaartay oo aadan weli inagu soo biirin hadda inagu soo biir subscribe kaastaba hadii aad hore inoo la joogtana waa mahadsan tahay intaan qisadan qisa lamid ah aan ku kulmi doono dhamaantiin waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo